tartanka noocaasi wuxuu yeelanayaa laba xaaladood. xaaladda koowaad waxay tahay in shirkadu tartanka waxay u qabanaysaa uu yahay in dadka tartanka loo qabanayo ama ummadaba dhaqaale uu ka soo galo. oo qofku tartankii inuu ka qayb galo waxaa shardi u ah inuu iyaga wax ka iibsado ama adeegyadooda uu isticmaalo lacag ay uga soo hoyto. tusaale ahaan waxaa la odhanayaa qofka ku shubtaa $1 tartankaasuu ka qayb geli karaa, ama qofka intaasoo daqiiqadood waxa weeyaan tusaale ahaan hadla, ama qofka dukaanka wax ka iibsadaa gaarigaa dukaanka la hordhigay buu tartan u gelayaa inuu ku guulaystana wax dhici kara. arrinta noocaas iyadu mid bannaan maaha, waana khamaar arrinta noocaasi ah. waayo labada darafba waxay udhexeeyaan bayna alqulmi waalqurb, khasaare iyo faa'iida udhexeeyaan. waxaa dhici karta qofkani lacagtiisa horta muxuu u bixiyey marka hore, oo niyada lacagtiisa uu ku bixinaya maxay tahay? waxa kuba iibsadabe. niyada uu lacagtiisa ku bixinaya waxay tahay inuu tartankaa ka qayb galo oo lacag uu helo ama maal adduunyo kale uu helo. waxaanu udhaxeeyaa inuu helo iyo inuu waayo. suurada noocaasina waa waxa khamaarka loo yaqaano, shareecaduna qimaar ay ku sheegtay. waxaana uu ka mid yahay dembiyada ay tahay dadka ku dhacay ilahay inooga toobad keenaan. wuxu uhi nabigeeni moxamed calayhi salaatu wasalaam sida tirmidi wariyey, man qaala liakhiihi tacaal uqaamirka falyatasadaq bishay. qofka walaalkiisa muslimkaa ku idhaahda kaalay aan kula khamaare, waa dembaabaye dembigaas si looga dhaafo waxa sadaqadaysto. waayo ilaahay baa tilmaamay wanaagyadu oo sadaqadu ay ka mid tahay dembiyada in lagu dhaafo. ina alxasanaati yudhibna sayi'aat dalika dikraa lidaakiriin. dhinac kale haddii laga arrintaas waa qarar, oo qofkii waa qof u dhaxeeya khasaare iyo faa'iido, waxaanu galayna natiijadiisa iyo caaqibadiisu waxay noqon doonto aan garanahayn. waqad naha nabiyu can ilgarar, rasuulkuna qararka oo arrin kasta oo caaqibadiisa aan la garanahayn iyo wuxuu ku dambayn doono ummadiisa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa u diiday. arrinta noocaasina mid qarsoon maaha. shirkaddu xoolaha ay bixinayso sadaqad uma niyoonayso, waxay doonaysaa dadka inay xoolo kaga hesho. xoolaha inay kaga hesho iyo inay weydana waa udhaxaysa, iyadoo ay u badan tahay kuwa faa'iidaya inay noqdaan kuwa shirkadaha leh. qofkan wax iibsanaya ama lacagta ku shubanayaana waxa uu lacagtiisa u bixinayaa si uu lacag ama maal adduunyo kale u helo. taasina waa khamaarkii shareecadu ay diiday ee khamriga lala xidhiidhiyey. marka suurada noocaas iyadu mid bannaan maaha, waa in la iska ilaaliyo. sida aynu kelmadii hore ku sheegnayna qofka muslimkaah maaha inuu adduunyada aakhira ka doorbido oo waxa lagu idhahdo waxaasi ma banaano, waa xaaraan, aakhiradaadu wax yeelaya. adduunya doon awgii inaad u samaysa maaha ayuha almuslim. adduunyadan dhammaanaysa ee baaba-aysa ee tegaysa ee yar ee qiimaheedu u liitaa yaanay ku dagino ilahay aanay kaa fogeyn. cadhada ilahayna subxana wa tacala yaanay ku saaba. xaaladda labaad ee tartankaasi uu yeelanaya wuxuu noqonayaa inaan qofkana xoolo ka baxahayn, qofka bulshada ka mid ee tartanka ka qayb gelaya oo wax allaala iyo wax loo shardiyaya aanu jirin. shirkadda lafteedana wax xoolo khasaare iyo faa'iida ugu dhaxaysaa oo ay xoolo ku doonayso inay ku hesho iyo inay ku weydaa aanu ka baxahayn. marka tartanka noocaasi hadduu nafci leeyahay oo dadka diintooda wuxuu ku soo kordhinaayo oo uu dhiiri gelinaayo, amaba se adduunyadooda xalaasha wuxuu ku soo kordhinaya sida aqoon oo kale, isaga wax dhibaato ama laha wallahu aclam.